wararka ka imaanaya degmada Godin Labe ee gobolka Galgaduud ayaa waxa ay sheegayaan in ciidamada maamulka Galmudug ay halkaasi ka wadaan howlgallo kala duwan oo wada furis ah howlgalladaasi oo ay ka sameeyaan daafaha degmada oo ay kooxo hubeysan isbaara ay dhigteen sida ay tilmaamayaan wararka inaga soo gaaraya gobolka Galgaduud xogaha ayaa intaasi waxa ay ku darayaan in xubnaha isbaarada dhigtay halkaasi iyo sidoo kale ciidamada maamulka Galmudug oo ku dhaxmaray qalalaasay yar oo kooban sida wararku ay sheegayaan kadib markii la isku maandaafay qadista isbaarada ay xubnahani hubeysan ay dhigteen gudaha degmada Godin Labe ee gobolka Galgaduud muddooyinkii ugu dambeeyay ayaa shacabka ku dhaqan Godin Labe waxa ay ka caroonayeen isla markaana ay ka muujinayeen dhibaatooyin kala duwan isbaarooyinkani tirabeelka ay la soo dhigay gudaha degmada iyadoona ay sheegeen in ay dadkani isbaarada dhigtay ee hubeysan ay dib ku hayaan isku socodka gaadiidka dadweynaha iyo sidoo kale gabi ahaanba amniga Godin Labe waxa ayna sheegeen in ay kala kulmaan dhibaatooyin ay qayb ka tahay dhac bareer ah oo loo geysanaya dadka isaga kala goosha gudaha iyo daafaha degmada Godin Labe waxaana tani ay noqonaysaa markii ugu horeysay ee maamulka Galmudug uu ku baxo cabashada shacabka ka timid ee ku aadan isbaarooyinka tirabeelka ee gudaha Godin Labe ay dhigteen xubnahani maleeshiyaadka hubeysan kuwaasi oo lacaga baad ka qaada gaadiidka halkaasi isaga kala goosha sidoo kale tan xilliyada qaarkood dhac u geysta dadka isaga kala goosha gudaha degmada Godin Labe